الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. درسku wuxuu ka bilaabmayaa aayadda 3 ka mida suuratul Acraaf. waxaynu soo aragnay nicmada Ilaahay uu siiyay ummadda iyo waxa uu xalaalay siday u dheefsanayaan nicmada inay ku xaragoodaan xaragada xalaasha ah ee aayaadku ay soo xuseen. xaragada wakhtiga ugu fiican ee la qaadanayaana ee la xaragoonayaana waa ilaaha boqorkaa marka la hor taagan yahay. yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid. mar kastoo ilaahay la caabudayo oo salaad la isu taago qofku dharka ugu wanaagsan buu qaadanaya, waayo waxa macruufa qofku had iyo jeer marka uu bani aadam boqora ama madaxa la kulmayo wuu iska dhisaa, xagga dharka uu xidhanayana wuu isdiyaariyaa. ilaaha boqorka ahina isagu ka sii mudan cid walba weeye. marka salaada la tukanayo waa inaanu qofku haylayaal xun isagoo gashan ama garan iyo macawisu isku masasaqu xidhay waa inaanu qaadan, laakiin isagoo shuurinayo dhar wanaagsan qaatoo fiican oo gaashaamana waxba u hadhanayn oo cadarkiisii iyo nadaafadiisii iyo dharkiisii dhammaystay waa inuu masjidka iyo salaadaba tagaa. saasaa u wanaagsan oo ziina ayaa ilahay ul quruxdiinna qaata iyo xaragadiinna mar kastoo aad la caabudaysaan. wixii ilaahay uu soo xalaaleeyey wuu soo tilmaamay, isagaana xaqule inuu wixii xalaashaa tilmaamo. wixii xaraamta ahaa buu halkan ku xusayaa, taasina waa xaquu leeyahay. qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow innamaa xarama rabbii, ilaahaygu wuxuu idiin diiday alfawaaxisha wixii foolxumo ah, maa dahara minhaa wixii muuqda wamaa badana iyo wixii qarsoon. waa sinada teeda muuqata iyo teeda qarsoon labadaba waa ilaahay diiday. walithma dembigana wuu diiday waxa la yidhaahdo siduu u dhan yahay, iyo walbaqya gardarrada bikayri alxaq, xaqdarrada ku timaada, xadgudubka iyo gardarrada dadka lagu xadgudbo. waan tushrikuu billaah, inaa ilaahay la caabudaan maa lam yunazil wax aanu soo dejinin bihi suldaanan, in isaga la caabudo waxaanu daliilba u keenin oonu ilaahay oggolayn in la caabudo, taana alla waa xaaraantinimeeyey. waan taquuluu buu xaaraantinimeeyey inaad tidhaahdaan cala allaah, rabbi inaad ka sheegtaan maa laa taclamuun, waxaydaan waxba ka garanay inaad ilaahay ku been abuurataan oo ka warisaan oo dad diin uga dhigtaan, taana waa xaaraantinimeeye ilaahay. intan oo dhanba waa mamnuuc weeye. arrimahani waa dhaawac ama jinaayatun cala alansaab wa jinaayatun cala alacraab wa jinaayatun cala alamwaal wa jinaayatun cala addiin wa jinaayatun cala almacrifa. shantaa arrimood bay aayaddu sheegtay. dhaawac dadku ay ku keenaan xagga nasabka, baasha sinada la ydhaahdaa marka ay mujtamaca dhexdooda ku faafto nasabkii waa dhaawacmay. waa taa aayadda ilaahay uu ku tilmaamay maa dahara minhaa wamaa batan, faaxishada muuqatiyata qarsoonba. jinaayatun cala alacraab,
iyadana waxaa la diiday dadka dhegtooda iyo sharaftooda in la dhaawaco waa xantii isku dirkii been abuuradkii lagu been abuuranayay wal ithma buu ilaahay xaraantinimeeyey jinaayatun cala alamwaal dadka xoolahooda in lagu xadgudbana ilaahay wuu diiday oo sida nasabkooda aan loogu xadgudbi karayn ayaan xoolahoodana loogu xadgudbi karayn iyo naftooda midnaba kolkaasuu ilaahay yidhi walbaqya bikayri alxaq naf iyo maal dadku waxay leeyihiin in lagu xadgudbo oo qori iyo qalin iyo isweydaar midnaba lagu qaato waa xaraam weeye jinaayatun cala addiin wa cala atawxiid xaqii ilaahay uu lahaa in lagu xadgudbo oo tawxiidkiisii la siin waayo iyo cibaadadu xaq u lahaa keligii taana iyadana waa la diiday in lagu xadgudbo wa an tushrikuu billaahi maa lam yunazil bihi sulطaana jinaaya cala almacrif xaqiiqada dhabta ah in iyadana xadgudub lagu sameeyana la diid waxalla wixii xaqaa'iqi ilaahay bay ka soo fulaan isagaa ina tilmaamaya wixii diina inoo sheegaya wixii cilmiya isagaynu ka qaadanaynaa wa an taquuluu cala allaahi maa laa taclamuun qofku waxaanu macrifo u lahayn inuu ilaahay ka sheego walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca waalbasara waalfu'aad kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uula marka inuu qofku dadka diin uga dhiga waxaan diin ahayn inuu jahli ku fityoodo oo jawaab jahli ku salaysan uu bixiyo sidii dee gaaladuba ay odhan jireen inay yidhaahdaan ubad buu ilaahay leeyahay intoo dhammiba waa xaraam ilaahay waxaa laga warinayaa waa wax cad qur-aankiisii kariimka aha baynu haynaa wuxuu yidhi waa kan weeye wuu qoran yahay marka haddaan aayad laga soo saarayn ilaahay baa waxaa yidhi lama odhan karo waxaa haddaba ilaahay uu tilmaamay adduunyadan wakhtigeedu waa kooban yihi insaan walibana wixii uu calfadaa buu kala tegayaa meel geedi loo yahay baa jira dadkuna intay ifkan joogaan ayaamahoodunbay qaadanayaan qofka ama kibirkiisu ha bato ama alla caabudkiisu ha bato calafku qaadanayaa mid cayiman weeye maalmuun baanu leeyahay waxba yaan lala yaabin walikulli ummatin ajal ummad waliba wakhti bay leedahay buu ilahay yidhi fa idaa jaa'a ajaluhum wakhtigoodu kolka uu yimaado ee uu ka dhammaado wakhtigu goortay tegayeen kolkay timaaddo laa yasta'khiruuna saacad ma dib marayaan wakhti yar walaa yastaqdimuun mana horu marayaan yaa banii aadama buu ilahay yidhi aadam ubadkiisiiyow imaa ya'tiyannakum hadduu idin yimaado rusulun minkum rusul idinka mida yaqusuuna calaykum aayaati aayadahayga idiin cadcadaynaya faman ittaqaa wa aslax qofka alla ka cabsada ee wanaajiye wax falaa khawfun calayhim cabsii kuwaa dushooda may ahaanin walaa hum yaxzanuuna mana murugoonayaan waaladiina kadabuu biaayaatina kuwa aayadaha yaga beeniyey buu lahay rususha aayadaha loo soo dhiibay kuwa diiday wastakbaruu canhaa aayadaha iska weyneeye ka santaagay ulaa'ika kuwa noocaasihi asxaabu nnaar naartunbay la saaxiib yihiin hum fiihaa khaaliduun weligoodna way ku waarayaan halkaasay ku dambayn doonaan kol hadday ilaahay diintiisa iyo aayaadkiisa diideen baa ilaahay wey adduunyada waxa ilaahay uu tilmaamay ummad waliba inay wakhti leedahay waa run waa sunnada ilaahay waa arrinka soo jireenka ah ee adduunyada aynu ku arkayn wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas dadka dhexdoodunbay maalmahani wareegayaan oo maalmaha wanaagga iyo maalmaha xumuhu dadkay ku wareegayaan yowmun laka wa yowmun calayk maalin dheef baad leedahay maalinna dhibaato maalmaha jiritaanka iyo joogidduna dadka dhexdooday wareegayaan maanta ummaddanaa joogtay berrina ummad kalaa joogaysa berrina ummad kalaa joogaysa qolo waliba taariikh bay ka tegaysa marka taasi waa midh jira laakiin ma dhacdo oo ma jirto ummad iska yeelanaysa un adduunyada ummad awoodda iyagu leh ummad aan tegaynin ma jirto qolo waliba wakhti bay qaadanaysa xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisu habeen la hadlay habeen salaaddii cishaayay u soo jeedeen oo dabeedna muddo wakhti dambe ay tukadeen ayuu la hadlayo wuxuu lahaa ogaada oo caawa dadka adduunyada guudkeeda ku nool caawa laga bilaabo marka 100 sano la joogo cidi ku hadhi mayso
caawadaa marka laga bilaabo 100 sano kolka la joogo qarnigani wuu rawaxayaa wey waa qarnigii nabi maxamed uu ku jiray calayhi salaatu wasalaam ee qarniyada ugu fadli badnaa ee sidii baana la tilmaama qarnigaasoo dhammi inuu ku tegey dee maxaad u malayn qarniyo kaloo adduunyada shar iyo fasaad la jooga dadka qaarkood baa marka ay arkaan dowladaha ama madaxda qaarkood oo maamulkoodoo adag iyo maamulkoodoo ummaddu ay karaahiyeysatay ay la yaabaan ayaa waxay dhahaan warmalaha kani mid suulayoo tegayaba ma aha marka uu dhintana dadka qaarkood baaba muddo isidhaado bal aan hubinno taasi waxa weeyaan runtii sunnadii adduunyada iyo soo jireenkeedii iyo taariikhdii ay lahaydoo qofku aanu aada ugu fiirsan u ka dhacsan yahay فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قالوا ولبا تجابة سي مريسا وقت قود وحي كو قاتانبا أفر يرمو أيا سورة دنبلو جيدا كسوغنا صدح حراوين صامرني يرمدي ودن بيسي واتن يرمدي ودن بيسي وحوي المبني آدم با إلهي باقو فدي باقاسي وحو النقضي إنو الرسول صادري رسول بان صادري با إلهي وإذين من دونت رسول شاسي وحا إذين عطينيان إلهي آيادهيس rusushaa cidda ka tala qaadatay alla ka cabsata waxna wanaajisa awliyada ilaahay buu ku biiro falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun cabsi iyo muruga toona ma haysato rusushaasi aayaadkay la yimaadeen cidda diidda kibirtana naar baan kaga argoosanaya ha ogaato baaqii 4 yeedhmo ee suuradda bilowgeeda ku sugnaa yeedhmadaasaa u dambaysa ilaahay iyo ummadda waxaa xidhiidhinaya rususha waxaa xidhiidhinaya aayaadka haddaba cidda rusushana raacda aayaadkaa ilaahay uu soo dejiyeyna ku dhaqanta wax ku hagaajisa ilaa noloshiibay saxayaane faman ittaqaa oo aslax ciddaasi xidhiidhkii ilaahay iyo welinimadii ilaahay ay weliga u noqonaysa iyo dhowaanshihiisii iyo raalli noqoshihiisii intaba ciddaasi waa heshay ama qur ha ahaato ama ummad badan ha ahaato qof iyo ummadba cidda kale markaa diidda ilaahay rusushiisii aayaadkiisana saasaa ilaahay u tilmaamay yaa banii aadama imaa ya'tiyannakum rusulun minkum yaqusuuna calaykum aayaati rusushu waxay la socdaan iskama socdaan hadal faariqana lama socdaan laakiin aayaad ilaahay bay la socdaan waxyi samaawiyay sidaan rusushaana rasuul kaloo malaa'igabaa u keentay marka aayadaha iyagiibay idinku dul akhriyayaan macnaheedu waxa weeye aayaadka waxaa loogu talagalay ummadda aayaadka in meel layska dhigo iyo in layska barbarakaraysto uun iyo in laga sii jeesto maya intaa midna looma keenine waxaa loogu dul akhriyayaa dadkan si ay dhaqankooda u bedelaan sidaa ilaahayba uu yidhi faman ittaqaa wa aslax cidda ilaahay ka cabsatee wax wanaajisa aayaadka cabsidana waa masdarka cabsida halka cabsida laga saay qaataa waa aayaadka iyo macrifada halka wanaagga keentaana meesha wanaaggu uu ka soo fulaana waa aayaadka cidda labadaa sifo laga helo falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun cabsi waxa soo socda ay ka cabsadaan iyo xusni ay ka murugoodaan wixii hore ka tegay iyo jaanis ka lumay taa midna ma jiro alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun aayaadku saasay isu fasirayaan baraarugoo awliyada ilaahay cabsi iyo muruga toona ma haysata awliyada ilaahayna waa kuwa iimaaniya alla ka cabsi laga helay baa ilaahay ku bayaamiyay aayaddaa isku macnaa labada aayadood والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مركا إلهي أمضى أبترسيما كما دحيس إهل نما مجرد مصالحي كما دحيس لكن وحا كدحيا إرقدا أو صادري ee turjumaysa fasiraysa ficil ahaan ku muujinaysa waxigu soo dajiyay xariga uu soo laalaadiyo waxiga cidda irkata faqad hudiya ila siraatin mustaqim jid toosan baa lagu hanuuniyay xariga cidda seegtaana kodada iyo karkaar ku weydaaranaya haadaanta naarta iyo boholo naareed ayuu ku libdhaya oo daf u oranaya ilaahay waxba ma qarin dadku maxay ku horumari karaan maxayse ku halaagsamaya intaba waa cadeeyay alla waxaynu baryaynaa inuu inagu hanuuniyo waxigiisa inaguna horumariyo darisku halkaa inoogu joogo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu